daawadayaal ku soo dhowaada Horjoog TV. Dibadbaxayaal hubaysan oo ka soo horjeeda xayiraad ay soo rogeen maamul goboleedka Michigan ayaa waxa ay isugu soo baxeen gobolka Michigan. Boqolaal dibadbaxayaal ah oo qaar ka mid ah ay hubaysan yihiin ayaa waxa ay isugu soo baxeen madaxtooyada. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa waxa ay hayeen kuba hubaysan. Booliiska ayaa waxa ay baareen heerkulka jirka dibadbaxayaasha ka hor inta qaar ka mid ah aan loo ogolaan inay gudaha u galaan halkaas oo ay xildhibaanadu ku shirayeen waa xildhibaanada gobolka Michigan. Barasaabka gobolkaasi oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa waxa ay sii dheeraysay amarkii ahaa in dadku ay guryaha joogaan ilaa laga gaarayo 15 bisha May. Gobolka Michigan ayaa dhibaatada baan ku haya caalamka iyadoona la soo sheegayo inay gobolkaasi ku dhinteen dad kor u dhaafaya 3788 qof. halka uu cudurku soo ritay in ka badan 41,000 oo qof kuwaas oo loo diiwaan geliyay cudurka. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay doonayaan in la furo ganacsiga isla markaana dadku ay shaqo tagaan halkii ay guryaha ku sugnaan lahaayeen. Waxayna la baxeen magaca waadiga Ameerikaanka. Sharciga ayaa waxa uu ogol yahay in qofka uu hub la soo gali karo madaxtooyada gobolkaas iyadoo dhowr ka mid ah dadka dibadbaxayay ay si cad hubkooda ugu wateen meesha ay dadkan martida ah fariisanayeen. Isla markaana ay kala socdeen kalfadhiga baarlamaanka gobolkaas. Ha yeeshee qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay isku dayeen inay galaan baarlamaanka. Waxaa soo hor istaagay booliiska gobolkaasi. hal sanatar oo ka tirsan sanatarada gobolka ayaa waxa uu sheegay in saaxiibadeed ay xirnaayeen jaakadaha rasaasta la isaga celiyo. Muuqaalka dibadbaxayaasha ee banaanka dhismaha ayaa muujinayay iyagoo ku qaylinaya inoo ogolaada inaan gudaha galno, inoo ogolaada inaan shaqayno iyo halkan waa guriga dadweynaha oo banaanka nagu celi karta. fayraskan dhibaatada baan ku haya guud ahaan caalamka ayaa waxa ay sheegeen isla markaana ay ku dhawaaqayeen fayraska wuu nala joogaa. dibadbaxe ayaa sidaas yiri. Masar Georgia ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Associated Press halkan buu noogu imaan doonaa waxaa la joogaa waqtigii dadka loo ogolaan lahaa inay shaqooyinka ku laabtaan. halkan uu noogu imaan doonaana waxay ula jeedeen cudurkan caalamka ku baahaya. isku soo baxa ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu ahaa midkii ugu weynaa ee nuuciisa ah tan iyo 15 Abriil. markaas oo dibadbaxayaasha Michigan ay gawaaridooda wadooyinka ku xireen si ay saxmad uga dhigaan aagaarka aqalka madaxtooyada. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xilligaas waxa uu taageero u muujiyay dibadbaxayaasha isagoo bartiisa Twitterka ku soo qoray xoreeya Michigan. dadka dhaleecaya Trump ayaa sheegay in fariimihiisa Twitterka ay ahayd mid uu ku boorinayo kacdo. Khamiistii baarlamaanka uu maamulo xisbiga Jamhuuriga ayaa waxa ay gaashaanka u daruureen codsiga barasaabka gobolkaas ee ahaa in la sii dheereeyo xaaladda degdeg ah. waxay ogolaadeen in maxkamadda loo geeyo oo magdhow la weydiisto ku aadan sida ay u xakameysay cudurkan safmarka ah. waana ay isdifaacday oo waxay sheegtay in inaysan xildhibaanada u baahneen si ay u meel mariso go'aankeeda. Arbacadii ayaa barasaabka waxa ay jamhuuriyadda ku eedeysay inay fayraska ay u isticmaalayaan sida dhibaato siyaasadeed halkii ay u arki lahaayeen inuu yahay waa cudur dhibaato ku ah caafimaadka bulshada. gobollo badan oo Mareykanka isla markaana ay ku jiraan gobollada Georgia, Oakland iyo South Carolina ayaa waxa ay qaadeen tallaabooyin lagu khafiifinayo xaaladda fayraska isla markaana waxa ay sheegeen inay khafiifin doonaan xanibaadda ay ku hayaan dadka ku nool gobolladooda. Arbacadii maxkamadda Michigan ayaa waxa ay xukuntay in amarka barasaabka ee xayiraadda ah uu yahay mid sharci ah isla markaana lagu ilaalinayo caafimaadka dadka.